nimankaasi degdeg ah loo qisaas oo qisaastooda si degdeg ah u dhacdo haddii aadad islaamatiin haddii kale 8 sagaal qurbahan ku leenay qurbaha la isku dilay way joogaan nimanka soo cararwaan haynaa nimankii soo ka dilay Casiir daliga dabad baa joogaan wallahi qurbahan isku dilayna qurbahan inuu joogin isku dilayna jaaliyada Faransiiska ee beesha la soo sheegay taswaata talabaad maanta jirkeygu la kurbanaya maskaxdeedu la kurbanaysa ay carabkeygu la kurbanaya waxa weeye Cabdirasaaq Yuusuf taliyay sanadkii hore lagu dilay berbera dilkiisuna uu dil qaran ahaa sidaan anagu arkaynay ila haddana uu yahay in la isku haysto dhigiisi waxaana kaga tagaya balweynta leeyahay garanuuntu soo bay ku abaatay marse banaanku dhaama jirta waligiin abuusaa bariyo tama bariyo waxba inta mayso taraduna idinka ila gudboon tahay ka been ahaan xukuumadda madaxweynaha wasiirada daba jooga ee ku doonaya darajada waxaan u leenahay socon mayso xaasha ma soconayso haddii aan arrintaa degdeg wax looga qaban taa Casiir iyo kuwa kale oo la mid ah oo ina dhigooda aasan yahay tala laga gaaraya in beeshu ka jawaabi doonto sida ugu dhaqsaha badan haddaan loo qisaasin ragii dilay Chief Caaqil ahaana taliya booliiska ee gobolka Saaxil Cabdirasaaq Yuusuf Maxamuud Casiir wixii dhacana waxa ka mas'uula xukuumadda haddii sharcigu shaqayn waayona ay noqonay nin walba iyo awoodii